maanta ay bishu tahay 19 bishii tobnaad 2017 waxay joognaa tuulada Balli Kaliil oo ka tirsan deegaanka degmada Sabo Wanaag waxa weeyaan iskuulka hoyga ah ee Dalay Boarding School munaasabadaynu waxa weeyaan dhagaxdhiga deyrka iskuulka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo wafdiga waxay soo booqday ama runtii soo daneeyay dugsigan muddada furaa boordanka 2002 ayaa la furay meelaha taqriiban ilaa 3 difcadood ama 4 difcadood ayaa ka qalin jabiyay macallimiintii ardaydii ugu horeysay ka baxdayna hadda macallimiin ay ka yihiin marka runtii waa iskuul aan ugu talagalnay dadka danyarta iyo deegaanka ee aan helin wax fursad waxbarasho sida gudoomiyuhu sheegay maanta waxaan joognaa Balli Kaliil deyrkiyo la samaynayo oo uu ku deeqay wasiirka duulista hawada Farxaan Aadan Haybe ilaahay khayra ka siiyo lacagta $12,000 ayuu ku deeqay waa daqadii ugu horeysay maanta deegaanka loogu deeqay iskuulka loogu deeqo badnaa weeye marka waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka deeqda uu soo gaarsiiyay oo iskuulku aad u baahnaa oo muddo dheer la hadalhayay oo in badan lagu taabayay ama lagu fikirayay sidii iskuulka loogu samayn lahaa deyr maanta ilaahay qadarkiisa waxaa suurto gashay inuu wasiirku isku xilqaamay baahida inuu intuu ka gudi karayo tabartiisa iyo awoodiisa uu ka gudo waxaanu soo gaarsiiyay iskuulka deeq dhan $12,000 oo ka u qaybsan sayska iyo furaashyo iyo baahiyo hoose oo iskuulka u baahan yahay marka koowaad waxaan leenahay waa deegaankaagii iyo dalkaagii oo wax u qabatay ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo aakhirada miisaanka ha kugu buuro wadmaadsantiin waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka Farxaan Aadan Haybe wasiirka duulista hawada runtii iskuulkani waa iskuul qiimo weyn ugu fadhiya degmada Sabo Wanaag iskuulkan tuulaha Balli Kaliil sida la sheegay waa iskuulkii ugu horeeyay degmada Sabo Wanaag oo dhan ay ardayda imtixaanka dugsiga dhexe maanta u fadhiyaan waxaan isku soo beegnay ardayda imtixaanka u fadhiyaan soo galay galaasyada eegnay iyo dhagaxiga dhismaha cusub ee lagu darayo iskuulka dhismahan runtii xukuumaddu dadaal badan bay ka gashay hore miisaaniyada loogu daray laakiin duruufaha ay noogeynayna soo maray abaarta iyo isku tashiga ahaa samata bixinta dadka iyo xoolaha ahaaba hakad geliyay laakiin go'aan xukuumadeed buu ahaa in la dhiso oo deyrka iyo qolaal cusub iyo klaasyaba lagu daro runtii madaxweynaha iyo wasaaradda waxbarashada waa mahadcelinayaa hawsha deegaanka dadka isku tashaday dadka deegaanka isku tashay odayaasha ee guddiga horumar ka tahay iyagana waa mahadcelinaya iyaga soo waday annagu gacan yar uma ka geysanaynay runtii macallimiinta iyo waxyaalaha shakhsiyan laakiin iyaga waday wixii ay maartay wasaaradda waxbarashada ku xukumooyay inta badankeeda dushooda ku dhacay runtii guda iyo dabadba waan uga mahadcelinaya dadka tanna waxay qayb ka tahay runtii de mas'uuliyadda saaran in xukuumadda kamid ah waajibkana saaran bay kamid tahay maadaama qorshihii ku talagalay miisaan loogu talagalay oo hakad galay inaan kaga tagine aanu isku tashanno oo dib isugu dayno inaanu fulino ballanqaadkii ahaa in la deyro iskuulka dhismayaashiisa lagu kabo kani waa sayskii imika waxa ku xigaya biidnillaahi tacaala in deyrkii la saaro dhismayaashuna ay daba socdaan wixii lagu darayo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqdo iskuulka ay ku soo wada xiroodaan dhammaan iskuullada ka jira degmada Sabo Wanaag ee ardayda dugsiga dhexe galaysa ay noqdo dugsi dhexe oo lagu ururiyo